hay'adda wadaniga ee Sayfo ayaa munaasabad qalinjabin u qabatay 106 arday oo dhameystay xirfado kala duwan. Munaasabad ballaaran oo lagu guddoonsiinayay agabyo kala duwan iyo shahaadooyin ayaa ka qabsoontay howlka kaafi ee magaalada Burco, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Somaliland, maamulka gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco iyo sidoo kale guddoomiyaasha xaafadaha IDP-yada ee magaalada Burco. agaasimaha hay'adda wadaniga ee Sayfo Cabdirasaaq Salaad Cali oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in ardaydan la baray xirfadihii ay ku shaqo tagi lahaayeen. waxaan maanta halkan u joognaa mudane guddoomiye arday ka kala socota saddexda xaafadood aan sheegay tir ahaan waxay dhan yihiin 106 arday waxay barteen 5 xirfadood oo kala ah farsamada gacanta intuba xirfadda faaradda dabka iyo electronicska dawaarka qurxinta iyo cilaanka iyo kumbarashada computerka dhammaan ardaydaasi waxay ka mid yihiin oo maalgelisay hay'adda DRC mashruuca wadajir ay hogaaminaysaa hay'adda World Vision SDC program ee consortium-ka waxay baranayeen xarunta ka baranayeen muddo 6 bilood ah halkan maanta waxaan u joognaa qalinjabintoodii waxaan guddoonsiin doonaa anagoo wadajir ah qaranka Jamhuuriyadda Somaliland hay'adda wadaniga ee Sayfo iyo DRC shahaadooyinkii ay mutaysteen ardayda dhameysatay iyo agab loogu talagalay inay ku shaqeystaan kaasoo qayb qaadan doona dhaqaale kobcinta qoysaskii ay ka yimaadeen ahna shaqo abuur. madaxa hay'adda DRC ee Somaliland Axmed Fagaasho oo ka mid ah 5 hay'adood ee ku midoobay mashruuca Somaliland Durable Solution Consortium oo laga fulinayay mashruucani ayaa u hambaliyay ardaydan maanta qalinjabisay. anigoo ku hadlaya magaca hay'adaha ku midoobay Somaliland Durable Solutions oo 5 ah si gaarana ugu hadlaya magaca hay'adda DRC waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ururka hawshan waday oo maxalli ah oo gobolka hawl weyn ka wada waa Sayfo 106 arday baa maanta xaggan aynu fadhinaa qalinjabintoodii taasi oo muujinaysa siday uga go'nayd in dhammaantood xirfadaha loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ay uga wada faa'iideysteen waxa mahad gaar ah arrintaanba ammaan ku leh waalidiinta aadka ugu dadaalay inay ardaydaasi ka midho dhaliyaan dadaalka loogu talagalay inay sameeyaan. Guddoomiyaha hay'adda barakacyaasha iyo qaxoontiga ee Somaliland Cabdikariin Xinif barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa la dardaarmay ardaydan la baray xirfadaha kala duwan iyagoo sidoo kale u mahadnaqay mas'uuliyiinta hay'adda wadaniga ee Sayfo. waan idinku habalyeynaya waxbarashada waxaan sayid ku darayaa talooyin ha isku dayina inuu qof waliba keligii dubihiisa iyo dawaarkiisa iyo mashiinkiisa la ordo dadka intii isku xirfadiba ama 5 qof ama 6 qof ama 10 qof ba company yar ha samaystaa halkan alaabta taala runtii idinka la idin siinaya walaabta loo baahan yahay inaad ku shaqaysataan oo aad ku adeegataan oo nafiina ku anfacdaan aad iyo aad baan saaka arrinkan ugu faraxsan waxaan isleeyahay 106 arday oo shaqo maanta baratay ay ku shaqaysan karayaan waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu mahadnaqo waa shaqo maanta loo baahan yahay oo shahaadada markaad qaadato aad si degdeg ah shaqo ugu heli karto. waxaan rajaynayaa inaad ku soo kordhin doontaan gobolka iyo magaalada iyo xaafadihiinaba aqoon iyo firfircooni iyo xirfado qiimo leh iyo isbeddel badan insha Allah ta'ala naftiina iyo dadkiina iyo bulshadiina aad anfici doontaan aad iyo aad u mahadsantiin cid kasta oo ka qayb qaadatana aad baan ugu hambalyeynaya uguna mahadcelinayaa ay ugu horeyso hay'adda maxalliga ee Sayfo. Guddoomiyaasha xaafadaha Caaqayar iyo Koosaar ee magaalada Burco iyo waliba qaar ka mid ah dadkii xirfadahaasi ka faa'iideystay ayaa sheegay in xirfadahan la baray ardaydan ay wax ka bedeli doonaan habnololeedka xaafadahaasi. gabagabadina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo agabyo kala duwan lagu guddoonsiiyay 106 arday ee dhameystay xirfadaha kala duwan. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.